asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka diradda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanayno cabdisalaan maxamuud shire oo ah wiil dhallinyaro ah oo arag gala oo haddana ka shaqeeya warbaahinta. cabdisalaan maxamuud shire waa wiil naafaka aragga oo ka howlgala idaacadda dowlad goboleedka Jubbaland ee Radio Kismaayo. Waxa idaacadda uu ku soo biiray 3 toddobaad ka hor, waxa uuna idaacadda ku leeyahay barnaamij toddobaadle ah oo lagu magacaabo Rajiside, kaasoo ka hadla arrimaha dadka naafada. cabdisalaan oo aan weydiiyey waxa ku kalifay isaga oo ah qof aragga uu ka maqan yahay inuu ka shaqeeyo warbaahinta ayaa ii sheegay inuu doonayo inuu u hadlo dadka Soomaaliyeed ee qaba baahiyaha gaarka ah, uuna rabo inuu wax ka bedelo xaaladooda si uu ugu dhiirigeliyo in ay wax bartaan, shaqeeyaan oo ay noqdaan dad wax soo saar leh. hadafka aan ka leeyahay barnaamijka waa hadaf iska cad oo banaanka iska yaalo. mid wacyigelin ah oo bulshada Soomaaliyeed ee aan aaminsanayn in qofka naafada uu wax qabsan karo in ay arkaan in aan anaga dhaqaaqayno wax qabsan karno, hadday warbaahinta aan ka shaqeynayno, hadday tahay dawlad in aan ka shaqeeyo shaqaalaha dawladda aan nahay. runtii mid waa taas. midda kale naafada ayada in ay rajo gasho way aaminaan in ay shaqeyn karaan, wax qabsan karaan, wax barani karaan, soconi karaan. hadda aniga ka cabsalaan oo kale Nairobi ilaa Kismaayo aniga kaliya socday, cid iga caawisana ma jirin oo aan ilaahay ka ahayn. ilaahay ka soo taas waxaan ku gaaray aqoon. marka taas ayaan dhihi lahaa in barnaamijkan Rajiside uu rajo gelinayo bulshada naafada. barnaamijkan ayaa si toos ah uga hadla arrimaha dadka qaba baahiyaha gaarka ah. toddobaad kastana waxaa looga hadlaa mowduucyo kala duwan. toddobaadkan waxaa marti ugu ahaa cabdisalaan oo ah soo saaraha barnaamijka Rajiside, gudoomiyaha ururka naafada iyo xubin kale oo ka socotay ururada bulshada rayidka ah. waxaana looga hadlayay mowduuc muhiim u ah oo quseeya dadka naafada ah, kaasi oo ahaa sida dadka naafada ah ay uga qaybgeli karaan hoggaanka dalka. wariye cabdisalaan ayaa iiga waramaya sida ay bulshadu u aragto barnaamijkiisa. Radio Kismaayo waxaan kaaga baahanahay in barnaamijkaas aad igala qaybgashid. qofka asaga ku hambaliyana marka hore intuusa aqbalay wuxuu arkayaa in uu yahay qofkan soo wacayo in uu yahay qof naafa ah kana mid ah warbaahinta Jubbaland. marka qofka asaga ku hambaliyanayo ka ku farxad gelinayaba waa gartay. barnaamijkii wuxuu u baahan yahay soo saaritaan iyo in waqti la geliyo, in maaragtay dad la balamiyo, in la diyaariyo oo wax la qoro. bal arrimaha sidee kugu suura galaan? runtii arrimahaas aniga keliya horta ma soo saaro, ma ka qayb qaato. aniga waxaan ka ahay barnaamijka aniga mas-uulka ah, waa run. laakiin intiisa badan barnaamijka waxaan uga mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad maamulka Radio Kismaayo. ayaga ayaa barnaamijka ila wado, ayaga ayaa ila soo saaro, ayaga ayaa meel barnaamijka ka jilicsan yahay ii sheego. barnaamijka cabdisalaan oo meeshaan ka jilicsan yahay, meeshaan uu saan ka yahay. haddii ay tahay qof hala waco hala balamiyo, runtii anigana waa balamiyo oo taas iguma cusulo oo qofka anaa raadiyo anaa baaro. haddii markaas oo kale aan dhinaca martidoo kale culeys way iga soo saarno, waxaan ogeysiiyaa maamulka sida hadda madax barnaamijka oo kale ama agaasimaha labadooda qofkii markaas ii dhow oo kale aan isleeyahay shaqo kuma jiro oo kale waa ogeysiin kartaa. saasaan ku ogeysiiyaa, ayaga ayaan iga caawiya.
cabdisalaan oo aan weydiiyey sida uu ku ogaado in la joogo xilligii barnaamijkiisa ayaa sharaxaad iiga bixiyey sida uu kula socdo saacadda iyo inta daqiiqo ee barnaamijka uga harsan. hadda waa 12 iyo 9 daqiiqo. tusaale marka aan rabo oo kale in aan barnaamijkayga aado oo aan ka dacsanayo oo kale maxaan u baahanahay in aan sameeyo kow saacadan fiirinaya barnaamijkayga hadda wuxuu soo galaa 9 subaxnimo maalin walba khamiis ah saacadan fiirinaya inta daqiiqo ka dhiman saacada markaan arko waxaan wacayaa gaariga ii imaanaya haddana waxaan ku xisaabtamaa inta daqiiqo aan wadada soconayo amaba jaamka aan geli kara intuu leeyahay insha Allah intaas ayaa ugu muhiimsan intaan ku ogaano. cabdisalaan waxaa kale uu awoodaa in telefoonkiisa uu ka wacdo qofka uu rabo. tusaale ahaan maalinta uu shaqada leeyahay waxa uu wacdaa darawalka idaacadda Radio Kismaayo. haddaba sidee ayay arrintaas u sameeyaa? marka aan rabo kale inaan waco intaan taabanaya screenka isdaaraya kadib intaan tagaya lambarkiisa oo kale bartaana la macayo keypadka ku soo baxaya 0 double tap oo ku dhahay asaa ku sheegaya 6 1 5 0 1 sorry close keypad button 1 0 6 4 kadib intaan ku dhufanayaa call button inta aad ugu dhufanaysa wacaya wuu ka qabanaya tusaale markuu isoo waco kale asaa ii sheegaya. cabdisalaan maxamuud shire ayaa qaba in dadka qaba baahiyaha gaarka ah in ay bulshada Soomaaliyeed ay aad u liidaan oo loo baahan yahay in bulshada naafada ah ee Soomaaliyeed ay helaan tixgelin iyo in laga hormariyo dadka kale ee caadiga ah. taasna ay u baahan tahay in dadka lagu wacyi sidii loo garab istaagi lahaa dadka qaba baahiyaha gaarka. magaalooyinka weyn ee hadda wadamadaas oo kale markaa tegay laba qof ee Soomaali markay isla socoto waxaa loo arkaa in ay xumaan sameeyaan. marka qodobka koowaad waa kaas oo ah in aan maanta Soomaalida adduunka ka aaminsan in aan wanaag u bedelo. qodobka labaad waa naafada dadka aniga oo kale ah Soomaalida ajnabiga runtii aniga aan inta badan aan wax ku soo dhaxbartay Soomaalida way ka duwan yihiin hadday yihiin muslim hadday yihiin dadkan diimaha kala haysto Soomaalida way ka duwan yihiin waxaad moodaa in ay xoogaa dhinacaas ay kaga naxariisan yihiin. Soomaalida dadkaas way liidaan oo qofka haddii xitaa hadduu aqoon-yahan yahay qofka mu arkaan inuu wax qabsan karo dadkaas ayagan in aan u noqdo ayaga afkooda aan ku hadlo ayaga aan soo saaro banaanka soo dhiga rajadooda. qodobka saddexaad ee aan dhigi karo uu igu muhiimsan yahay runtii waa hooyooyinka Soomaaliyeed. wadanka wuxuu burbursan yahay in ka badan 27 sano intaan wax soo gaarsiiyey wadanka Ilaahay baa badbaadiyey laakiin uu sabab uga dhigay waa hooyooyinka Soomaaliyeed ee xaqooda weli haddana la dudsiinayo. marka qodobka saddexaad waa kaas oo ah in aan ayagana xaqooda u soo dhiyo anigoo aan ka tilaabsanaynin sharciga islaamka. agaasimaha idaacadda Radio Kismaayo Xasan Nuur Maxamed ayaa barnaamijka diiradda uga waramay sidii markii hore ay isku barteen isaga iyo Cabdisalaan. waxaana sheegay in xarunta uu imaaday Cabdisalaan Maxamuud Shire oo shaqo raadis ah uuna arkay Cabdisalaan hamiga uu u hayo warbaahinta uuna ahaa qof ka soo baxay macadyo kala duwan oo dhinaca saxaafadda ah sidaana uu kaga mid noqday shaqaalaha idaacadda Radio Kismaayo. maxamuud shire hadda wuxuu ka mid yahay shaqaalaha Radio Kismaayo. markii ugu horeysay uu yimid waxay ahayd 2018 bishii Agosto oo ku beegnayd xilligii la magacaabay agaasimaha Radio Kismaayo.
cabdisalaan wuu ii yimid isagoo shaqo doon ah oo markaa aada u daneynayo inuu radio kismaayo ka howlgalo. Markaa wuxuu watay shahaadooyin kala duwan oo dhanka waxbarashada iyo weliba macaahid uu kasoo baxay oo dhanka warbaahinta. Wuxuu ii sheegay in warbaahin kala duwan codsiyo uu geystay oo shaqo doon ah, laakiin wuxuu ii sheegay in intooda badan ballamo loo dhigayay oo ahayd in shaqo la siin doono, uuna waayay cidib ugu soo laabatay. Kadib shahaadooyinkiisa aan qiimeeyey, xog dheeraadan ka raadiyey. cabdisalaan waa qof naafa ka ah aragga oo indhaha waxba kama arko, sidaas daraadeed su-aalo badan aan weydiiyey oo ku saabsan barnaamijkiisa. Waxaan u sheegay in barnaamijka ama war ha noqoto ama barnaamij ha noqoto warbaahin marka laga shaqeynayo inay u baahan tahay dadaal fara badan. Waan weydiiyey, waxaan ihi ma u diyaarsan tahay inaad hawshaas culus inaad xambaarto? Waxaa ka muuqatay dhiiranaan zaa'ida iyo inuu daneynayo inuu warbaahinta ka shaqeeyo. weliba waxaa iga muuqatay kalsooni zaa'ida inuu naftiisa ku qabay. cabdisalaan warqadii aan ka guddoomay, contactina waan kala reebanay, waxaan ku ihi iga warsug. intaa igama harin, marar badan ayuu ugu soo laabtay. markii ugu dambeysay uu yimid waxay ahayd bishii December oo isla sanadkii dhammaaday. ugu soo laabtay, wuxuu ku sameynayay dabagal codsiga uu keensaday, weliba waxa ka suura galay. mar kale ayaan is wareysanay. cabdisalaan waan u sheegay markaa in aan wadno qorshe isbedelo loogu sameynayo barnaamijka iyo inaan ka fikirayo shaqada uu geli doono, meesha uu geli doono. waxyaaba cajaa'ib kale runtii cabdisalaan runtii u dhiirigeliyaba inaan u arko inuu yahay qof shaqada ay ka go-an tahay. waxaa ka mid ahaa, wuxuu ila yimid fikrad ku saabsan barnaamij uu ku haminayo inuu radio kismaayo ku yeesho. wuxuu ii sheegay in maadaama uu yahay qof araggala, ay dad badan sawiranayaan isla markiiba inaysan suuragal ahayn qof araggala inuu wax qabsan karo. wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan fikraddaas dadka ay aaminsan yihiin inaan bedelo, inaan muujiyo anigoo araggala inaan wax bedeli karo. wuxuu ahaa qof vision leh, aragti fog. wuxuu ii sheegay dadka naafada inay isu arkaan dadaan wax qabsan karin. arrintaa uu sheegay inay dadka ka dhaadhiciyaan oo ay liidaan. wuxuu kaloo ii sheegay qofka markii naafo u yahay waxbarashada heerka uu rabo uu kasoo gaaro inuu niyajab ku yimaado, dib u laabto. taasna ay sababto in dad la heli waayo dad wax bartay oo ku intifaacay cilmigooda oo naafo ah. wuxuu ii sheegay barnaamij uu doonayo inuu yahay barnaamij u gaara dadka naafada ah, oo uu doonayo inuu ka dhigo barnaamij isugu jiro wacyigelin. wuxuu ii keensaday qoraal dheer. waxaa ka mid ahaa qodobada uu soo jeediyey in barnaamijka uu doonayo inuu ku dhiirigeliyo dadka naafada ah, gaar ahaan dhanka waxbarashada, in iskuulaadka aadaan waxbartaan, cilmiga meel ka gaaraan. wuxuu ii sheegay in ujeedkiisa uu yahay inuu muujiyo awoodaha dadka naafada ah. wuxuu ii sheegay inuu doonayay in fursad la siiyo dadka naafada si codkooda bulshada u maqasho. wuxuu ii sheegay in bulshada kale ee lixaadkooda u dhammaystiran yahay laga wacyigeliyo, sidii ay lagu wacyigeliyo si ay ula dhaqmi lahaayeen si wanaagsan dadka naafada, iyagoo iska ilaalinaya waxyaabaha niyajab ku keena naafada sida camoole, dhagoole, jeeri, cawar iyo waxyaaba fara badan oo dadka naafada ah niyajabka uu sheegay in uu doonayay in barnaamijkan uu noqdo halkii bulshada lagu bari lahaa habka ixtiraamka leh ay ula noolaan lahayn dadka naafada. barnaamijkiisa wuxuu bilowday bishaan Febraayo aan ku jirno, bishaan labaad. wuxuu socdaa ilaa 3 mar u galay, mar tijaabo ah iyo 2 mar caadi u galay. barnaamijkan markaan aqbalaynay qorshayaasha markuu soo gudbay kadib aan ka fariisanay. waxaa haddana waqti laga qaadatay January gudaheeda, annagoo markaa qorsho ka wadnay in aan isbeddel ku sameyno barnaamijyada, inaan mar kale dib uga fikirno barnaamijkan oo cabdisalaan la yimid inaan taabagelino oo uu noo qabsoomo kana mid noqdo barnaamijyada toddobaadlayaasha idaacadda. barnaamijkii waan qaadanay, magaciisa in badan ka fikirnay, waxaana siinay barnaamijka hadda magac la yihahdo Rajasida. magaca sidee uu ku imaaday? magac uu cabdisalaan keenay baa ahaa mise magac si tiim ah oo wada jir aad way wada fikirteen? aad baa umahadsan tahay. magaca Rajasida wuxuu ku yimid saan kuu sheegay magaca waqti badan naga qaatay inaan raadino, laakiin waxaan u fiirinay wixii markaa taagnaa oo ahayd cabdisalaan oo raba inuu soo celiyo rajadii dadka naafada ah, fursadna ka hela radio Kismaayo. maadaama isagii uu qorshahan la yimid, aan u aragnay inuu yahay barnaamij muhiim u ah dadka naafada, waxaan u fikirnay barnaamijka magaca wuxuu ahaa magac laga tashtay oo in badan laga fikiray, magacyo badan oo lasoo jeedaa jirto, laakiin waxaan u aragnay inuu yahay Rajasida
barnaamijkan inuu yahay barnaamij rajo u sido dadka naafada ah, cabdisalaanna inuu yahay rajo side oo role model ama tusaale wanaagsan u noqon kara dadka isaga la midka ah ee naafada ah ee aaminsan in haddii faculty ka mid ah culumta la barta ay bartaan inaysan gaari karin hadafkooda iyo higsigooda. barnaamijkaas sidee buu wax uga bedeli karaa waad leedahay dadka naafada ah waan ognahay inay wixii dad ay soo mareen gudaha dalkeena Soomaaliya maadaama aynan helin adeegyo badan oo qaarkood aysan waxba baranin qaarkood aysan aaminsanaynba maaragtay inay shaqayn karaan oo wax qabsan karaan sidee buu wax uga bedeli karaa waad leedahay. waa su-aal muhiima. dhab ahaan barnaamijkan waxaan isleenahay wax badan oo ka bedeli karaa. waxaa tusaale u ah barnaamijka toddobaadka u horreeyay tijaabo ku baxay toddobaadkii labaad waxyaabaha na cajab geliyay waxay ahayd in cabsi badan aan ka qabnay barnaamijkan sii socoshadiisa inay meesha ka baxday. waxaan aragnay naafada inay aada ugu xiran tahay barnaamijkii. hadda toddobaadyada soo socda hataa barnaamijyada diiradda lagu saari lahaa waa kuwo muuqdo. waxaan garab istaag ka helnay ururka naafada Jubbaland, waxaan helnay dhageystayaal badan oo naafa ah oo barnaamijka soo waca, waxaan helnay dad kale oo aqoon-yahano ah oo runtii iyaga taa kaalin ku leh in barnaamijkan ay fikrado ku biiriyaan, ay sii xoojiyaan. waxaa la dhihi karaa barnaamijka hadafkii laga lahaa ee ahaa in dadka naafada saameyn ballaaran uu ku yeesho waa la gaaray. waxyaabaha marka aad su-aasha ay weydiisaa sidee waxa uga bedeli kara waxay tahay barnaamijka inta badan mawduucyada lagu soo qaadanaya waa wax quseeya dadka naafada. waxaa ka mid ah dadka naafada inay ka mid noqdaan siyaasadda, in codkooda la maqlo. warbaahinta dowladda waxaa codkooda si fudud uu gaaraya mas-uuliyiinta dowladda, ururadii bulshada rayidka ahayd, in allaale inta codka bulshada ku hadlaysa maamul iyo weliba ururo bulsho rayid. waa barnaamij aan ku casuulno, waa barnaamij waxyaabaha jira challengeskaasta dadka naafada intaan dabagalno aan soo bandhigayno dadkiina loogu sheegayo hore uma jiri jirin. marka laakiin waxaan rabnaa inuu cod u noqdo barnaamijkan dadka naafada ah maadaama ay ka mid yihiin dadka na dhageysto, in barnaamij gaara ay ku yeeshaan oo bulshada kalena ay kala qayb galaan. isaga maadaama uu yahay shaqsi naafo ah maxaad is leedahay uu kaga duwan yahay shaqaalaha kale? dhab ahaan cabdisalaam saa aragtayba waxa uu leeyahay aragga uma suura gasho inuu warqad qoro. wuxuu wax kusoo bartay dalkaas Kenya. qalabkii qorista uu isticmaali lahaana ma haysano. laakiin cabdisalaam waxyaabuu kaga duwan yahay inta hadda barnaamijkan uu ku jiray aan arkay oo runtii fikradeenna bedesho waxaa ka mid ah waa nin aada ugu firfircoon xagga isticmaalka aaladaha social mediaha. cidna ma aaminayso laakiin cabdisalaam wuxuu isticmaalaa Facebook, wuxuu isticmaalaa WhatsApp, wuxuu isticmaalaa aaladaha bulshada ay ku xiriirto. codaduu ku duubaa, codadaa loogu soo diraa, contacts uu yaqaanaa. waxyaabaha cajaa'ib kale waxaa ka mid ah mawduucyada uu doonayo mararka qaar inuu kusoo qaato message ugu soo diraa. qof aragga la oo haddana message kuu soo diraa waa dareemi kartaa. dadaal dheeraadaan ku aragnay. waxyaabaha kale la midka ah dadaaladiis waxaa ka mid ah magacyada oo kale markii barnaamijka waa lala diyaariyaa oo madaxa barnaamijyada iyo xafiiska tafaftirka aada ogala shaqeeyo in barnaamijkiisa wuxuu kusoo qaadan lahaa iyo weliba qaabku noqon lahaa loo sheego. waxyaabaha aan ku arko waxaa ka mid ah waxaan dhihi karaa waa shaqsi memorigiisa ama qeybtiisa xusuusta aada u wanaagsan tahay. magacyada scriptiga iyo wixii loo sheegay markii barnaamijka la galo waa nin aada u xasuusta oo intaa hadda arkaya maana arkin magacyada barnaamijka dad kala duwan ay ka qayb qaadanaya isagoo qaldayo mawduuca kama dhexbaxa. dhab ahaan saan ka filayna si ka wanaagsan uu noqday kumana sii dayna barnaamijko in badan waa laga caawiyaa oo waa la garab taagay. wiilkan dhallinyarada ah ee araggala ayaa aada u jecel shaqada saxaafadda waxaana weligiisu ku hamin jiray in uu maalin uun ka howlgalo warbaahinta gudaha dalka. hadda ayayna u rumowday riyadaasi. nimco maxaad u leedahay sida ayada? okay, ma u malayn kartaa marka in ay jiraan dad aqoon-yahano ah oo ka tirsan naafada oo wax qabsan kara? malahan siday u dhahayaan macnaha istiila wax barta wax qabsada inay kor ugu kacayaan. gudoomiyaha ururka naafada ah ee magaalada Kismaayo oo ka mid ahayd dadkii barnaamijka ugu martida ahaa Cabdisalaan ayaa ka waramaysa saameynta uu barnaamijka rajiside oo ku yeeshay dadka naafada ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo. barnaamijka rajiside oo Cabdisalaan daadihinayo waa barnaamij aad aan ugu faraxnay weeye. inkastoo hadda bilow yahay
haddana waa mid aada loogu macnaha farxay waayo dadka naafada aragtida ay ka qabaana waa aragti aada u wanaagsan waa maxaa yeelay bulshadii ayaa la qabsanayso dhegeysanayso fikradahoodana ka dhiibanayaan arrintaa waxay tahay marka lama soo koobi karo macnaha inay ku fadhida barnaamijka rajaside fikradaasi waa fikrad ay ku dayan karaan dadka naafada ah waxayna u arkaan aragti fiican oy naafada ku dayanayso fikradaha ay qabaana markaa ay la soo bandhigi karaan waxaan rajeynayaa haddii ilaahay idmo cabdisalaan arrintii uu sameeyey in ay macnaha ay noo noqon doonto arrin ku dayasho leh insha allah wayna kasoo qaybgeli doonaan fikradaasna aada baan usoo dhaweyneynaa sideed uga qayb qaadataan barnaamijka marka cabdisalaan soo saaray isaga daadiyeeka markuu idin soo waco dee maamulkii aad tihiin dadkii naafada ahaa ee ku xirnaa barnaamijkan inta badanna uu quseeyeyba sidee baad uga qayb qaadataan uga qayb gashaan waxaan uga qayb galnaa sida hadda stuudiyaha aan isugu nimi oo kale waxaa dhici karta inuu la wadaago ayagoo xafiiskooda fadhiyaan inuu waraysi ka qaado oo kale marka arrinta iyada ah dhowr jeer ayuu cabdisalaan dadka uu soo dhaweeyey adigu weli ma ka qayb gashay anigu kama qayb galin laakiin ururka naafada way ka qayb galeen maya barnaamijkan sheegay barnaamijkan waa markii uu hore ururka naafada uu ka qayb galay laakiin aniga ahaan waa markii koowaad ee aan ka qayb gala waayo maadaama aad ku dhex jirto dadkii naafada ahaa oo aad adiga de mas-uul aad u tahay sidee bay ugu xidhan yihiin dadku barnaamijkan waxay ugu xidhan yihiin taleefonaha noqoto waxay ugu xidhnaan karaan in ay cabdisalaan soo wacaan ee xiriir fiican la sameeyaan hadda naftirkeeda waana lasoo wacaa oo ayaantii barnaamijkii u horreeyay ay ninkan afhayeenka iyaga noo abuukar maxamed raage ayaa hadda kahor barnaamij la qabtay cabdisalaan radio kismaayo marka dad badan ayaana soo wacay oo naafo ah waxay dhaheen arrintaas waa arrin aan aada u jeclaysanay in aan ka qayb galana waa rabnaa marka waxaa la isugu xiraanayaa si aan caadi ahayn maasha allah waa arrin aan soo dhaweyneyno waxaa jira dad badan oo naafo ah oo dhinaca aragga ha ahaato guryaha soo dhaafin dad kale oo iyana maqal kala dad iyagoo mataqaanaaye qeybo kamida laxaadkooda maqan yahay sidee bay mataqaanaaye arrintaasi ugu dhiirigelinaysaa dadka inay iyana shaqeeyaan oo shaqo qabtaan oo wixii camal ah kale dadka kale ay qabtaan iyaguna ay qabtaan arrintaas sidee bay dhiirigelin noocee keenaysaa waxay keenaysaa dhiirigelin aada u wanaagsan markii for example hadda codkanaga uu ka baxaayo radio kismaayo barnaamijkan rajasida dadkii macnaha waxay haystaan idaacaddii bay dhegeysanayaan taleefanada u horeeya soo wici karaan waa idinka iyo annaga ururka naafada ah halkaas waxay u noqonaysaa bilaabkii u horreeyay ee rajada ay lahaayeen rajasida ayadoo rajay gelinaysaa dadkii markaa qofkii guriga aan kasoo kici karna indhoolka ahaa lagu leeyahay wuu soo kacayaa moralkoodii baa dhismaaya waxay u noqonaysaa arrin farxad leh ee geeli socodkooda ay ku guuraan oo akhbaar iyo ay ka helaan ay helaan xog ka helaan markii xog la hela ayaa la helaa baa la yidhi tala la helaa marka arrintan waa arrin aada aan ugu faraxna haddii aan naafanahay cabdisalaan ayaa ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee dhinaca waxbarashada ka faa'iidaystay waxbarashada xeryaha qaxootiga dhadhaab ee kenya waxauna waxbarashada dugsiga hoose dhexe oo ku dhammaystay iskuulka xerada qaxootiga ee dhagaxley ee jubba primary halka waxbarashada dugsiga sarena uu ku qaatay magaalada kisumu ee gudaha dalka kenya halkaas oo loo qaaday isaga iyo arday kale oo ka mid ah ardayda qaba baahiyaha gaarka maxaa yeelay islaamka horta guud ahaan wuu isu baahan yahay meel walba adduunka joogaan gaar ahaan soomaalida waa walaalo way isu baahan yihiin rag iyo dumarba marka bulshada soomaaliyeed naafada waxay uga baahan tahay garab maxaa yeelay dadka wax bartay ee naafada ah hadda way yar yihiin inkastoo ay soo badanayaan goobaha wax lagu barta dadka naafada ay wax ku bartaan ayagoo ay badan yihiin dadkooda aan wax baran bulshada soomaaliyeed haddana hadday dhahaan qofkan meeshaan uu la-yahay wax ma baran karo wax ma qabsan karo ma shaqeyni karo marka taas waxay ku keenaysaa niyad jab barnaamijkayga marka waxaan oga gol leeyahay waxay tahay in taas ay meesha ka saarto
cabdisalaam waxa uu ka mid yahay dadka aragga naafada ka ah, haddana waxa uu sida dadka kale ee caadiga ah u isticmaalaa baraha bulshada, taas oo dad badan ay kula yaabaan marka ay arkaan isagoo isticmaalaya. waa kan mar kale cabdisalaam oo isticmaalaya WhatsApp, Facebook iyo weliba YouTube, wuxuuna ii sharaxayaa sida uu arrintaasi ugu suurto gasho. marka waxa laga rabaa inaan message qoro bartaasaan ku dhufanayaa. gacanteeda dhididsan sorry. keyboard inta markuu soo baxo marka fariinta aan rabaan qorayaa. haddii qofka aan salaamayo ama haddii qof fariin la ii soo diray ama salaan ama nooc kale marka aan ka jawaab celinayo oo kale aan inta ku dhufanayo keyboardka. qof walba marka sidaad aragtaan waa caadi la wada arki karaa qof walba oo rabo inuu arko. tusaale waxaan rabaa Facebook oo kale. Facebooka asa inta taabanaya. hadda caadi aan u tagay marka hadda marka caadi waxaan u geeyay marka aan raaco in isticmaalo heesoo kale. heesoo kale u geeyay oo ku yar geyigeena Soomaaliga in ay isticmaalaan dadka naafada ah aladan casriga ah hadda. laakiin waxaan u maleynayaa qof walba oo isku day waxaan in uu isticmaali karo. hadda tusaale aniga oo kale waxaa ii fududeeyay in isticmaalo. dabcan waxaan ahay qof wax bartay in waxaan u rajaynayaa dadka aniga oo kale dhammaan ama naafada in ay wax bartaan insha Allah. tusaale hadda aniga oo kale marka aan goobta shaqada aan joogo ama xaafadda aan joogo ama magaalada oo kale aan joogo saxabteeda runtii way jirta qaar ila yaaba oo dhaha cabdisalaam maxaa qoraysaa maxaa sameynaysaa ma ana xitaa qaar igula kafta ma jira ma anaga nawaaleysa meesha wax ku qoran dad wax hadla anaga maqlayna wax la qoray uma jirno. laakiin nasiib wanaag qofka markii aan ka dhaadhiciyo oo kale ama aan tuso si caadi anigoo wax qoraayo ama fariintii la ii soo qoro oo kale aan tuso qofka wuu igu hambalyeynaya wuu ii mahadcelinayaa. qofka wuxuu fahmayaa in aan horumar gaarnay in dadka anagoo kale aan wax qabsani karno. maasha Allah. hadda tusaale telefoonka kale marka isticmaalayo cod baa ku xiran. codka marka aan la isoo wac oo kale wuxuu i dhahayaa hebel baan ku soo wacay. haddii qof dumar ay tahay heblaa ku soo wacday. haddii message la ii soo qoro oo kale ama fariintaas ku soo dhacday fariinta tagaya oo taabanaya qofka i garab fadhiya ama ila joogo. way jirtaa dadka anagoo aan naafada ahayn in aan uga baahan jirnay caawimaad oo aan dhihi jirnay fariimahaasaan u baahannahay fariimahaas ii akhri ii qor. laakiin hadda uma baahnin. ilaahay oo kaliya u baahannahay telefoonkaasaan wadanaa. haddii computer u yahay computerkaygan qaadanaya cod baa iigu xiran saan oo kale codkeen aan tagayaa waa isticmaalaya caadi. wax walba aan u baahanahay marka ama computerkayga ama telefoonkaygan ka isticmaalaya. waa mahadsantiin. codka in fariinta lagu soo diro ma asiga ku aqrinaa fariinta? haa asaga ii akhrina. hadda tusaale oo kale fariin baa adiga ii soo dirtay waxaad igu leedahay waxaan rabaa tusaale waxaad rabtaa oo kale inaad iga codsatid inaan ku imaado oo kale ama TV-ga ha ahaato ama ha ahaato magaalada oo kale goob ka tirsan. waxaad ii soo qoraysaa cabdisalaam waa hebel aniga ayaa ku baahan intee joogtaa fadlan. waa fiirinayaa waxaan garanayaa in aad tahay qofkaas isaga ah ii baahan aan xafiiska oo kale ugu tago. waa ku weydiinayaa intee joogtaan ku dhahayaa marka kugu soo celinaya fariinta anaa qoraayo. wuu ii sheegayaa marka fariinta marka aan dhammaystiro oo kale wuu ii akhrinayaa in ay saxan tahay inay qaldan tahay. hadday saxanta waa dirayaa hadday qaldanta meesha qaldanta ka saarayaa wixii aan meeshaas u raban ku darayaa waan ku soo diraa waad ii soo diraysaa cabdisalaam xafiiskan jooga igu imow.
daawadayaal waa naga intaas barnaamijkii diradda oo toddobaadkan aan idiin soo saaray idinlana socodsiinayay anigoo axmed cabdi maxamed axmed toronto inta aan ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa anigii asxaabteyda kaleba sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu